waxaana fuliyey ilaa 5 nin oo ka tirsan kooxda al-shabaab balse horey loogu xukumay dil toogasho. kulan wacan oo xiiso leh weerar qaraxyo ah oo dagaal toos ah uu weheliyo ayaa laga maqlay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. weerarkan ayaa ku bilowday qaraxyo risaas toos ah oo lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho. warbaahinta waddanka Soomaaliya ayaa waxay ku warameen in ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa asluubta ee gacanta ku haya xabsiga iyo qaar ka mid ah maxaabiista oo hub heshay ay dagaalameen. goorsii horeysay afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Qalaf oo warbaahinta kula hadlay gudaha xabsiga ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay weerarkii maanta ka dhacay halkaasi. afayeenka ayaa sheegay in ugu dambeyn weerar kala soo afjaray isla markaana uu sababay khasaaro xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qalaf ayaa shaaciyay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan 5 maxbuus ah ayna ku dhaawacmeen 18 kale oo ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa halkaasi. sidoo kale wuxuu tilmaamay in howlgalka ay ku dhinteen 3 askari sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 kale oo ka mid ah ciidamada ilaalada xabsiga dhexe magaalada Muqdisho. dhinaca kale waxa uu tilmaamay in ay socoto baaritaan ku aadan weerarkan isla markaana natiijada ay la wadaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed kadib baaritaanka. weerarkan ayaa waxa laga dhaxabaabulay isla xabsiga gudihiisa waxaana fuliyey ilaa 5 nin oo ka tirsan kooxda al-shabaab balse horey loogu xukumay dil toogasho kuwaasoo dhammaantood toogasho lagu dilay intii uu socday howlgalkii ciidamada ammaanka ay ka wadeen gudaha xabsiga. waxaa la toogtay mid ka mid ah maxaabiista oo ku dagaalamayay qori noociisu uu yahay AK47 kaasoo ku xukunaa dil toogasho. sida ay wararku sheegayaan hub culus ayaa gudaha xabsiga la geliyey ilaa haddana lama garanayo sida maxaabiista hub ay u heleen. waxaa dhaawaca taliyaha qaybta bandamuusiga ee Bambayda Cali Xasan Ciise iyo 3 askari. si kastaba ha ahaatee waa markii labaad oo xabsiga dhexe iska horimaad uu ka dhaco sanadkii 2020 ay ahayd markii sidan oo kale maxaabiis ku jira xabsiga oo hub loogu qariyay raashin ay ka dhex dagaalameen xabsiga gudihiisa. xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa ah kan ugu weyn ee ku yaala caasimadda Soomaaliya. maxaabiista ku xiran qaarkood ayaa loo haystaa dambiyo culus sida dil halka kuwa kale loo xiray inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab. qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa waxay sheegeen in ilaalinta xabsiga ay u baahan tahay taxaddar dheeraad ah. waxay qaarkood farta ku fiiqayaan in ilaalada xabsiga ay u qaybsanaato 3 qaybood oo wada shaqeeya. waxay sheegayaan in askarta waardiyaasha ee gudaha xabsiga ku jira ay mamnuuc ka tahay inay hub sitaan loona baahan yahay oo keliya inay sitaan seeri iyo boorad. dadka dhanka khubarada ammaanka ayaa waxay sheegayaan inay jiraan waxyaabo ay tahay in xabsiga dhexe iyo guud ahaan xabsiyada laga taxadaro oo laga hortago in la geliyo sida hubka, mindi, sakiin iyo waxyaabo la mid ah. waxay sheegeen in maxaabiista ay kala dambiyo duwan yihiin isla markaana inta isku dambiye ahba meel lagu xiro si gaar ahna loo ilaaliyo. weerarkan mid la mid ah ayaa horey uga dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho sanadkii 2022 kadib markii maxaabiista iyo ciidamada ilaaladu ay dagaalameen taasoo dhalisay khasaare dhimasho iyo dhaawac. weerarkaasi waxaa ku dhintay ilaa 10 ruux oo isugu jiray ciidan iyo maxaabiistii ku xirnayd xabsiga.